لولاه لدمنا في الظلام عليك السلام. banaanbaxan oo ahaa mid lagu weyneynayo bishii uu dhashay nabigeena maxamed nabadgelyo naxariis warkiisa ahaatee ayaa maanta lagu qabtay magaalada Gaalkacyo iyo xarunta gobolka Mudug. banaanbaxan oo ahaa mid si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa si wada jira u soo qabanqaabiyay culimadiinka Ahlusunna wal Jamaaca ee ku dhaqan magaalada Gaalkacyo kuwa oo isugu jira Galmudug iyo Puntland. waxaa ka soo qayb galay boqolaal ka mid ah bulshada magaalada Gaalkacyo kuwaas oo isugu jira rag iyo dumar iyagoo socod dheer ku soo maray wadooyinka waaweyn magaalada Gaalkacyo kuwaas oo u soconaya raxan watana gaadiidka kala duwan ay ku rakaban yihiin samacado iyo mikrofoono kuwaas oo lagu qaadayay diiri nabi amaana. socdaal waqti dheer qaatay kadib waxa ay banaanbaxayaashii isugu yimaadeen barxadda weyn ee ku taala bartamaha magaalada Gaalkacyo halkaas oo culimadiinka Ahlusunna wal Jamaaca warbaahinta kula hadleen ka kuleelka badan ee maalinka qiyaame ilaahay subhanahu wa ta'ala shafaacada nabiga inuu nageliyo sallallahu alayhi wa sallam waxaan iskugu soo baxnay waa nabiga dartiis waa nabiga tacdiimintiisa ilaahay waxaan ka baryaynaa fadliga nabiga aan kaaga baryaynaa maalinka kuleelka badan ilaahay subhanahu wa ta'ala kuwaad marti qaaday oo carshiga hooskiisa saartay Allah inaga jecel isku timaado waxaan ilaahay ka baryaynaa ilaahay inuu maxabada noo ziyaadiyo waxaan aad iyo aad iskugu dardaarmaynaa ikhwaani fillah dadku waa laba qaybood dad waa dad nabiga jecel alayhi salaatu wa salaam dadna waa dad nabiga nacab oo afka islaamnimada ka sheegta hadda markii wadada aan soo maraynay inta yar tahay oo aan soo lugeynay dad badanna waa nagu farxaan oo waa noo tahniyadeen oo gacmaha inaga salaamayeen dadna waa caroodeen kuwa xataa aqwaal maaragtay xunxun uu ka soo baxay ilaa qiyaamuhu ka dhaca dadku sidaas ay noqon doonaan dadka nabiga jecel Allah naga dhigo waxaan isku dardaarmaynaa sidaas inaan nabigeena u tacdiimino insha Allah ta'ala waxaan roobdoona aan niyeysano sida culimadu ay sheegeen kuleelka Ilaahay naga qaado waxaan ku soo gaabinayaa laba arrimood labadaas arrimood mid waxa weeye midnimada culimada Ahlusunna wal Jamaaca in maaragtay la xoojiyo khaasatan magaalada aan joogno Gaalkacyo isku soo siyaarto isku booqdo isku yimaada ayaa maxabadeedu u waajibtay wal mutajaalisiina fiya aniga daraadeeda kuwii isku yimaaday oo isku soo fariisay baa maxabadeedu u waajibtay waxaan dareemayaa halkan wax kale ummadan isku ma keenin maxabada ilaahay maxabadiisa iyo maxabadu rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam mubaaraka alayhi ayaa meeshaan isku keenay walaalayaal waxa weeye nabigeenu waa raxmadii caalamka loo soo diray wuxuu nabigu yiri ana rahmatun muhdaat anigu waxaan ahay buu yiri naxariistii la soo hadiyeeyay xaq ilaahay laga soo hadiyeeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam adduunyada markaan joogno naxariis weeyo waa ku liibaanay ilaahay ummadda ayuu ku hanuuniyay sababtiisa iimaan baa ilaahay ummadda ku siiyay kufrigii baa laga suuliyay nicmadan maanta aan haysano nicmatul islaam wal iimaan nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa sabab noogu noqday biwujuudihi bifadlihi baa ilmaan ku helnay sidaas awgeed marka muslimku inuu dabaaldego caalamka daafiisa dabaaldega looga dabaaldegay nabiga aan la qaybsano ayaa la doonayaa walaalayaal اسمه مغرور مع الجلالة ذكره مرفوع كما في الآية فضله مشهور تاج الرسالة يحسب الأرواح مولى العلامة فبه حدينا لدين الإسلام عليك qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ka qayb galay banaanbaxa lagu weyninayo bashii uu dhashay nabigeena maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee oo ka hadlay goobta ayaa iyaguna yiri mahad celinayaa in allaala iyo intii xafladan soo qaban qaabisay oo ka soo shaqaysay iyo intii ka soo qayb gashay oo halkaan maanta ugu soo banbaxday maxabada nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam inay ka shukri naqaan oo ilaahay uga mahad celiyaan inuu ka dhigay dad islaam ah oo ehlu tawxiid ah oo qiray laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah oo jecel nabigooda oo maanta u dabaaldegaya dhalashadii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam maalintii ilaahay adduunkan keenay oo ah maalintii hadiyadii ugu qaalisanayd oo bini aadam la siiyay ilaahay ugu deeqay bini aadamka maalintii nabi maxamed ifka la keenay maalintaas
waxay ahayd hadyaddii ugu qaalisaneed ilaahay markuu bixiyey oo bini aadam siiyey dhalashadii nebi maxamed bay ahayd ilaahay uu ifka keenay waa ku faraxsannahay ilaahay baan uga mahad celinaynaa ilaahay iyo nebigii baynu rumaynay wax ilaahay iyo nebiga beensan miyaa saaka halkaan taagan dadweynaha reer gaalkacyo culimaadudiinka sunna wal jameeco oo midoobay baan soo dhawaynayaa waxaan soo dhawaynayaa maamulada midoobay waxaan soo dhawaynayaa dadka maamulada maayarada gudoomiyaasha gobolka oo sanyaro hormoodka u yahay ilaa qayr ha siiye oo nabadda ka shaqaynaysa ayaan soo dhawaynayaa kuwii hore oo nabadda ka shaqeeyana waxaan leeyahay oo korneyl cabdulaahi yuusuf axmed iyo jenaraal maxamed faarax caydiid ay hoggaanka u ahaayeen oo 93dii ay nabadda noo saxeedna ayagana ilaahay qabriga ha ugu nuuro cid kastoo nabad ka shaqaynaysana ilaahay qayr ha siiyo waxaan leeyahay culimmada sunna wal jameeca way midoobeen haddii ay midoobaanna nabadda ayaa tiirarka mudanaysee war midnimada ha la adkeeyo ayaan leeyahay waxaan leeyahay dadku waa darisjimbi gaalkacyo darisjimbi way guryahayaga waa isku dhisan walaal baan nahay ma kala maaranno ilaahay baa maaragtay qofba qof buu jecel yahay ganacsiga iyo maalka iyo dhaqaalaha iyo nabadda iyo barwaaqada iyo diinku waa naga dhaxeeyaan oo kutubta intuu ninka cilmi badan yahay masaajidda ka akhriyaa war waxaan leeyahay isdhexgalkayaga ha ballaarto dadka reer gaalkacyo nabadday jecel yihiin oo col kama dhicin ilaa 93dii tuug baa meeraysanaya tuugga shariicada islaamka aan waafajinno isku duwaha wasaaradda awqaafta ee arrimaha diinta dowlad goboleedka galmudug maan cabdirasaaq maan cabdiraxmaan sheekh nuur oo ka hadlay gunaanadkii bannaanbaxa ayaa sheegay in shacabka gaalkacyo ku guulaysteen in si wada jira halkan lagu wada xuso maalintan ku weyn ummadda Soomaaliyeed dhammaan waxaan salaamahayaa dadka akhyaarta ee halkaa isku baan salaamahayaa anoo ku hadlahaya ee wakiilka ah wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta ee gobolka galmudug wasaaradda kaletana oo Puntland waan salaamahay arrimaha diinta iclaamkan shalan jeedinay idaacadaha iyo maaragtay Facebooka in arintan mawliidka aan sameeyno iyo ilaah bari ilaahay aan madar ka baryayno iyo isdhexgalka walaaltinimada isjacaylka kulli ayaan insha Allah baan soo dhaweynaynaa waana ku faraxsanahay ka wasaarad ahaan waxaan leenahay intii lana ku wacdiyayna ilaahay nagu anfaco intii la kugu duceeyana ilaahay ha noo aqbalo islaamka caalamka meel joogaba ciz iyo sharaf Allah siiyo Allah wanaajiyo ma sha Allah iskamaadkana mid guul Allah ka dhigo imtixaamaadka ka islaamka Allah ka qaado ilaahay waxa qalbigooda Allah isku dumo qalbkooda Allah isku dumo ilaahay khayr wa adduunyo Allah gaarsiiyo maxabada ilaahay iyo maxabada rasuulkeena sallallahu alayhi nagu arzuqo ma sha Allah waa intaaniyeenaya khayr badan Allah intii ka shaqaysan khayr badan wabillahi bil kasta markii la gaaro 12 Rabiicul Awwal waxay ka mid tahay magaalada Gaalkacyo magaalooyinka sida weyn lagu xuso markii uu dhashay nabigeena Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee sanad waliba markii la gaaro 12 Rabiicul Awwal waxay ka mid tahay magaalada Gaalkacyo magaalooyinka si weyn looga dareemo bishii uu dhashay nabigeena Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee iyadoo xaflado iyo banaanbaxyo lagu qabto magaalada Gaalkacyo fadlan haddii aad nagu cusub tahay channelkan subscribe saar like na saar waxay noo tahay dhiirigelin waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaaladeena